madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin oo ay ka dhax tafatay dowladda Qatar oo miiska wada hadalka isugu keentay oo lagu kala tagay madaxweyne Farmaajo saameyntiisa mar kale xilka Soomaaliya ma ku hanan doona Fahad Yaasiin oo shakhsi kala dhisaya siyaasiyiinta mucaaradka oo u kala cararaya la saaxiibista faraha siyaasadda ee Soomaaliya. Fahad Yaasiin xogta khilaafka xarfaha aan kala harin ee Fahad iyo Farmaajo warbixintan oo dhameystiran ayaan muuqaalkan idinku qaadaa dhigi doonaa, balse marka hore share gareey Qaran News, share ku dhaha groupyo badan oo saaxiibadiina la wadaaga ka mid noqda saaxiibada ku xiran Qaran News ee kala socda xogihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka. Wahagaag aynu ku bilownay xoga uu helay Qaran News ayaa sheegaya in khilaaf uu soo kala dhaxgalay madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, khilaafkaas oo ku aadan doorashada Soomaaliya, qaabka loo maamulayo iyo dib u soo laabashada madaxweyne Farmaajo. Waxaa la xaqiijiyay in madax ka tirsan dowladda Qatar ay miiska wada hadalka isugu keentay isla markaana lagu kala tagay oo la isku fahmi waayay. Waxa ay u muuqataa in xilligan lagu kala tagayo filadii awoodda badneed. Fahad iyo Farmaajo ayaa ahaa saaxiibo siyaasadeed oo in badan isgarab taagnaa. Fahad waa shakhsiga ugu saameynta badan filla Soomaaliya iyo guud ahaan siyaasadda Soomaaliya, waana ninkii ugu hadalhaynta badnaa 5 sano ee la soo dhaafay marka la soo hadal qaado arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Xilligan waa xubin ka tirsan baarlamaanka 11aad ee xilligan dhismihiisa uu socdo. Muddooyinkan waxa uu ku howlanaa oo uu ka shaqeynayay dib u doorashada madaxweyne Farmaajo si uu mar kale Soomaaliya u sii hogaamiyo oo sanado kale uu dalka u sii joogo taladiisana uu ka arrimiyo. Waxa ay filla Soomaaliya dejisay qorshe fara badan kaasi oo ku aadan dib u doorashada madaxweyne Farmaajo. xildhibaano badan ayaa kuraastooda loo xiray, kuwa qaar ayaa siyaabo kala duwan ku soo baxay, waxaana la xaqiijiyay in guud ahaantood ay yihiin kuwa taageersan madaxweyne Farmaajo. balse xilligan xaajada waxay u muuqataa in weji kale ay yeelatay maadaama siyaasadda ay mar walba isdhalan rogto. waxaa la xaqiijiyay in siyaasiyiintii mucaaradka ee madaxweyne Farmaajo ka soo horjeeday in badan xilligan ay u kala cararayaan in ay la saaxiibaan faraha siyaasadda ee dalka. waa Fahad Yaasiin. waxaa la xaqiijiyay Fahad in uu isku dayo marka koobaad in uu noqdo gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliya. intaasi kadib waxaa sidoo kale la sheegay in shakhsi kale uu dhisayo si uu madaxweyne u noqdo, balse waxaa la isweydiinayaa madaxweyne Farmaajo saameyntiisa iyo taageerada badan ee shacabka Soomaaliyeed ay u qabaan mar kale talada dalka ma ku hanan doonaa oo ma guuleysan doonaa. dadka qaar ee dhiraandhiriya arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxa ay sheegeen in madaxweyne Farmaajo uu yahay shakhsi ka duwan siyaasiyiinta, isla markaana ay adag tahay tartan kasta oo la galo in laga guuleysto. khilaaf kastoo imaadana uusan wax saameyn ku yeelan karin oo uu mar kale talada dalka hanan doono. mucaaradka xilligan waxa ay doonayaan in Fahad Yaasiin uu dhiso oo ay guul siyaasadeed gaaraan. waxaa sidoo kale la xaqiijiyay in mas'uuliyiinta dowladda Qatar ay isku dayayso in arrintan ay mar kale miiska wada hadalka iskugu geyso oo ay soo afmeerto si aysan u dhicin saameyn iyo kala tag. wahagaag saaxiibayaal, waad ku mahadsantihiin daawashadiina cudoon. fadlan muuqaalka share gareeya, share ku dhaha groupyo badan oo saaxiibadiina la wadaaga ka mid noqda saaxiibada ku xiran Qaran News ee kala socda xogihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka. nabadgelyo.